dowladda Soomaaliya oo qaaday tallaabo culus oo cabsi gelisay Axmed Madoobe. Maxay tahay ciidanka uu diray Axmed Madoobe magaalada Raaskambooni? Qorshaha ka socda magaaladaasi, xogihii ugu dambeeyay, tallaabada uu qaaday madaxweynihii mucaaradka ama garabka mucaaradka Gaboose, wararkii ugu dambeeyay iyo xogo kale iyo qalaasaha ka taagan magaalada Kismaayo ayaa daawan doontaan. Aynu ka horreeno magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka Jubbaland waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo Axmed Madoobe uu ku doonayo inuu kaga hortago qorshaha dowladda Soomaaliya ay ku doonayso magaaladaasi in ciidamo taabacsan lagu geeyo, iyadoo oo saacadihii la soo dhaafay xogaha ay sheegayeen in ciidankii gaaray magaalada Raaskambooni ama garoonka diyaaradaha Raaskambooni ay ka degay ay u dhaqaaqayaan dhanka magaalo xeebeedka Kismaayo, iyagoo oo dooma ka qaadan doona magaalo xeebeedka Raaskambooni oo degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose hoos tagta. saacadihii la soo dhaafay waxaa socday qorshe dowladda Soomaaliya ciidamadaasi ay ku geynayso oo la helay oo hordhaca, waxaana madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee maanta doorashada qabsaday uu ku dhawaaqay go'aankiisa ka dhanka ah ciidanka kadib markii ay soo ilaatay doorashada. maanta uu galay Axmed Madoobe howlkii doorashada ayuu uga dhawaaqay in uu diyaar u yahay wax kasta oo kaga yimaada dhanka dowladda inuu wajaho, isagoo oo ka digay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahana uga digay in dhalinyarada Soomaaliyeed la isku baabi'iyo, sida uu sheegay madaxweynaha maamulka Jubbaland ee maanta doorashada qabsaday Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. 5 sano oo hor leh ayuu ku darsaday ama loo cusboonaysiiyey haddii si kale loo dhigo madaxweynaha maamulka Jubbaland, isagoo oo Axmed Madoobe iyo sidoo kale garabka madaxweynaha mucaaradka ay isku hayaan magaalada Kismaayo. dhaqdhaqaaqyo isdiidan ayaa ka socda magaaladaasi saacadihii la soo dhaafay. ciidamo ka amar qaatay Axmed Madoobe ayaa la soo wariyay inay ka baxeen Kudhaa oo aan sidaasi uga fogeen magaalada Raaskambooni, waxaana ay u jihaysteen isla magaaladaasi oo ciidan dowladda taabacsan saacadihii la soo dhaafay diyaarado ay ku geysay dowladdu halkaas. dhaqdhaqaaq ayay ka bilaabi doonaan ciidamadan magaaladaasi iyaga oo kadib usoo jihaysan doona qabashada magaalada Kismaayo sida xogaha ay sheegayaan, walow taliyaha ciidankan maamulaya ee warbaahinta la hadlay uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay la wareegayso goobihii ay ka baxeen ciidamada ATMIS looguna talagalay ciidankan in lagu wareejiyo fariisimahaasi. waxaa qayb ka ah goobahaasi oo ciidanka dowladda ay la wareegayaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo iyo goobaha kale baraha control ee muhiimka ah magaaladaasi, waana mid keenaysa cabsida xoogana ku abuurtay Axmed Madoobe qalalaasana wajihin karta ama ka abuuri karta magaalada Kismaayo. dhanka mucaaradka Axmed Madoobe waxa uu u diray fariin taabanaysay cid kasta oo mucaarad ah, waxaana uu sheegay inaysan jirin mucaarad Kismaayo wax ka dhex samayn kara, isagana uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee magaaladaasi jooga. ciidamada ammaankana uu farayo inay ka hortagaan cid kasta oo qalalaasa bilowda. madaxweynaha maamulkaasi ayaana waxa uu markan ka helay garab xubnihii mucaaradka ahaa, madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaaraha hore Xasan Cali Kheyre, xubno kale iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayuu ka helay fariin hambalyo ah. madaxweynaha isdooray ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorashadii maantana ku soo baxay natiijadeeda oo la sii ogaa. waxay mucaaradkiisu wajahayaan xilligan xiisado kala duwan iyo culays siyaasadeed. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaana qaaday tallaabo culus oo dhanka mucaaradkiisa u qaaday, isagoo sheegay in ay diyaar u yihiin in uu la dagaalamo cid walba oo ka hor timaada. waxa uu sheegay inuusan aqoon Kenya, uusan aqoon Ethiopia, uusan aqoonin dowladda, sidoo kalena uusan uga baahnayn aqoonsi iyo sharciyad inay siiyaan. waxa uu ku dhawaaqay go'aan culus oo sii adkeynaya xaaladda siyaasadeed ee magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland. tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ee ciidanka lagu geeyay Raaskambooni ayaana waxa ay tahay mid kale oo quus sii gelinaysa maamulka Jubbaland iyo marxaladaha ka jira. dhinaca kale, ninkan idin muuqda waa Senator Ilyas Badal Gaboose, waxa uu sheegay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Kismaayo jooga Jubbaland. wuxuu ka dhawaajiyay go'aan taabanaya Axmed Madoobe, isagoo sheegay inaysan jirin cid soo weerartay, sidoo kalena go'aankiisii waxa uu sheegay inuusan ka tanaasulin, uu yahay madaxweynaha sharciga ah. doorashadii maanta ka dhacday Kismaayo ayuu ku tilmaamay inay tahay
mid sharciga baalmarsan isagana uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamulkaasi hogaamin doona sanadaha soo aadan. dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka fikiraysaa markan sidii wax laga yeelin lahaa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Kismaayo. dhaqdhaqaaqyo isdiidan ayaana magaaladaasi ka taagan, waxaana senator Ilyas Badal Gaboose uu qeyb ka yahay xubnaha sida weyn u diidan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxa uu guud ahaan beeniyey wararkii sheegayay in la xiray ama uu isku dhiibay ciidanka Axmed Madoobe taabacsan. taa bedelkeeda waxaa ninkan xogii ugu horeeyay ama la helaya ay sheegayaan in uu ku dhawaad ciidan kor u dhaafay 200 oo askari uu haysto, uuna ku sugan yahay magaalada Kismaayo. sida ka muuqata hadalkiisana waxa uu ku celiyay inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Jubbaland. isaga Axmed Madoobe ayuuna u diray fariin isaga oo sheegay in uu ka laabto tallaabooyinka uu qaadayo. maamulka Jubbaland ayaana wajahaya xaalad aad u adag iyada oo ay jiraan xiisado kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay si weyn u taagnaa. xubnaha mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda ayaana waxa ay hambaliyo dhambaalo ah u direen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo doorashadiisu maanta ay ka dhacday, iyada oo Jubbaland ay leedahay laba madaxweyne marka la eego dhinacyada mucaaradka iyo muxaafadka. Axmed Madoobe garabkiisa isaga ayaa u madaxweyne ah oo maanta ay doorteen, halka garabka mucaaradkana ay madaxweyne kale maalintiisa u doorteen Ilyas Badal Gaboose oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse ayaa wada dhaqaaqyadii ugu dambeeyay ama tallaabooyinkii ugu dambeeyay arrintan ku aadan. welina ma jiro war ka soo baxay dowladda saacadan aan la hadleyno ama xogtan idin tabinayno oo ku aadan doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo. oo sidoo kale ma jiro maamul kale oo ka hadlay doorashooyinka Jubbaland iyo dib u doorashada Axmed Madoobe marka laga tago Puntland oo dowladda is hayaan. Jubbaland iyo Puntland waa laba maamul dowladda xilligan is hayaan, waxaana saddexda maamul kale ee Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle ay yihiin kuwo xilligan aan wax wara ka soo saarin doorashada ka dhacday magaalada Kismaayo ee la xiriirta Axmed Madoobe dib u doorashadiisa. ugu dambeyntiina sidii saaka in la wadaagna ama warbixinteena horeba aan kugu tabinay, waxaa shir degdeg leh golaha wasiirada Soomaaliya, waxaana caawa 8 habeenimo magaalada Muqdisho gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ama xafiiska xukuumadda ka dhacaya shir degdeg ah, iyaga oo shirkaasi looga areysan doono dhowr arrimood oo kala duwan. xukuumadda waxay go'aan ka gaari doontaa ama war ka soo saari doontaa doorashadii ka dhacday maanta magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu qaado tallaabooyin Axmed Madoobe ka dhana, iyadoo xogaha qaar ay sheegayaan in caawa lagu dhawaaqayo guddigii doorashooyinka heer qaran iyo xuduudaha, kuwaasi oo la horgeyn doono maalinta Talaadada ah baarlamaanka Soomaaliya si ay cod aqlabiyad leh ansixin ugu sameeyaan ama ay aqbalaan guddigaasi. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxaa suurtagal ah caawa inuu ka jawaabo eedaha culus ee uu u jeediyey Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kadib doorashadii maanta, waxaana tallaabooyin culus markan qaadaya dhanka dowladda dhexe iyo sidoo kale dhanka maamulka Jubbaland. waxaa isdiidan siyaasadaha labada dhinac, waxaana sidoo kale socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dhinacyadan ka soo baxaya, iyada oo saacadihii lasoo dhaafay wararka la helaya ay sheegayeen in madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo dib isku doortay iyo madaxweynaha garabka mucaaradka ee isla Jubbaland senator Ilyas Badal Gaboose ay isku hayaan arrimaha Jubbaland la xiriira. dhanka dowladda go'aankeeda ayaan weli lahaynin, xukuumadda ayaana caawa la filayaa in war ay ka soo saarto arrintan la xiriirta doorashooyinka maamulka Jubbaland.